kulan wacan oo saaxiib yar ku soo dhawaada barnaamijkii kulan wareedka maanta oo aad maqashaan maalmaha Arbacada iyo Isniinta. qodobada warka maanta ah ku soo qaadana waxa kamid ah madaxweyne Farmaajo oo la sheegay in uu ku khasban yahay in wadahadal la furo dhinacyada ka soo horjeeda hanaanka doorashada. Musharax Daahir Maxamuud Geelle oo madaxweynaha Galmudug ku tilmaamay dhexdhexaad ahayn. Ra'iisul Wasaare Roble oo weerar afka ku qaaday xubnaha beeshiisa oo ku metelo kursiga ra'iisul wasaarenimada isla markaana meel hoose gaarsiiyay saamiga ay ku leeyihiin dalka. beesha caalamka oo dhinacyada siyaasadda Soomaaliya ku canaanatay inay isfaham balaaran ka gaaraan madmadowga doorashada. madaxweynaha Puntland oo kala diray golihii deegaanka degmada Gaalkacyo. Somaliland oo gacanta ku dhigtay rag la sheegay in ay weerar ku qaadeen taris ay ku lahaayeen magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. ciidamada ammaanka ee Galmudug oo howlgallo ku soo qabtay waxyaabaha qarxa. qodobadaas ayaa ugu waaweyn warkeena maanta. waxaana sidoo kale barnaamijka ka qayb ah xubintii ciyaaraha. waxaan halkan baaq aan ugu dirahayaa ummadda Soomaaliyeed meel waliba ay joogaan. waxaan leeyahay waynu ognahay waxa dalkan laga soo maray tan iyo burburkii wixii dhacay waan ka warhaynaa hooyo. anigu da'deedu waa 95 sano. Farxada Maxamuud baa la yiraahdaa. wax badan baana goobjoog u soo ahaa dalkan oo hadda 30 sano weli burbursan. maanta haddii la yiraahdo dowladnimadii taagta darnayd ee awal baana naf lahayn waa la ridahayaa, dib weyn bay abuuri kartaa. marka dee madaxweynahana waxaan ugu baaqayaa inuu wixii nabad ah ogolaado. dadkan siyaasiyiinta ee calooshoodu shaqaystayaasha kaliya waxay ku fikirayaan waxay tahay madaxweynow inay kursiga adiga kaa dhaxlaan. kuma fakarayaan dalkan dib baad soo gaari karta hadduu hadhow dagaal dhaco. kuma fakarayaan. waxay ku fakarahayaan waxay tahay sidii adiga ay kursiga kaala wareegi lahaayeen. haddii aad diiddo aad tiraahdo anigu go'aankayga baan ku adkaysanayaahoo doorasho aan loo dhammayn baan qabanahaya haddaad tiraahdo dhib baa ka imaan kara madaxweynow. marka madaxweyne khayr allaha ku siiye dalkan qof aan adiga ahayn oo maanta badbaadadeeda leh oon anigu hadda sheegi karayo ma jiro. marka dee madaxweynow noo tartiibi. qoladan mucaaradkaana kolay siday rabaan oo macquulgalka u samee. sidii aan macquulgal ahaynna ummadda Soomaaliyeed u soo bandhig. maaha inaad dalkan aad rabsho ka abuurtaan, inaad dadkan aad qixisaan. hadda waan ognahay qax iyo dhibaato yaa. marka dee waxaan idin leeyahay ilaahay Soomaaliya ha isu dubo. siyaasiyiinteeduna ilaahay ha isku saxo. oo waxaan aragnaa waxyaabaha aan wanaagsanayn. marka dee ilaahay dawgow fiican waa yaqaanaaye ilaahay ha inagu wada toosiyo. dagaal dan nooma ahane 30 sano baynu burbur ku jirnay. haddana burbur labaad ma rabno. dalka inuu noo badbaado baan rabnaa. dalka inay dowladnimo xasiloon noo hesho baan rabnaa. marka madaxweynuhuna waa mahadsan yahay ee nabadda ha qaato. go'aankan curdanku wuu ku dhegan yahay. adeerkii baa laga diiday. adeerkii baana dhibkan 30 sano mar walba lagu eedsadaa. marka Farmaajo 4 sano waa dadaashay. dadaalkaaga ha qasaarin waa iga talo. daacad waxaa loo diidi karin dalkeena bay dawadiisa tahay. daacad waxaa loo diidi karin dalkeena bay dawadiisa tahay. dalkeena bay dawadiisa tahay. haddana aan soo qabto qodobka ugu horeeya. madaxweyne Farmaajo oo la sheegay in uu ku khasban yahay in uu wadahadal la furo dhinacyada ka soo horjeeda hanaanka doorashada. waxaa qodobka isha soo mariyay wariye Cali Maxamed.
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa cadaadis xoogan ku saaraya saddexda madaxweyne goboleed ee taabiciyiinta ah ee qorqor lafta galmay Guudlaawe inay bilaabaan doorashada qalka sare si kastaba waxaan ku helin in aad uga cagajiidin arrintan sababtuna ay tahay cabsi ay ka qabaan inay dalka u horsadaan dagaal sokeeye madaxweyne Farmaajo si kasta iskugu dayay inuu dalka qabto doorasho aan wada ogol ahayn ayaa waxaan boqotin hadda iyo wixii ka dambeeyay ku qasban yahay inuu wada hadal ka galo doorashada Soomaaliya si loo dhaqaajiyo howlaha horyaalla dawladda iyo guud ahaan dalka sida ay qabaan shaqaaqanadii siyaasiyiin badan waxaa jira duruufo madaxweyne Farmaajo ku qasbay inuu wada hadal ka galo doorashada Soomaaliya isla markaana sameeyo tanaasul si loogu gudbo caqabadaha doorashada ku horgudban duruufaha madaxweynaha ku qasbaya inuu heshiis gal ayaa kala ah kow in madaxweynaadkiisu uu dhammaad yahay oo ay ka harsan yihiin 25 maalmood oo kaliya taasoo micnaheedu yahay in firaaq awood uu dalka ka dhici karo haddii aan la helin heshiis degdeg ah labo in haddii uu dhammaado madaxweynaadkiisa uusan yeelan doonin awood sharci uu ku meel mariyo go'aan walba oo xafiiskiisa laga soo saaro taas oo keeni karta in wax badan uu ku waayo saddex inuu jiro culays badan oo dhanka beesha caalamka ah oo madaxweynaha la saaray muddooyinkii ugu dambeeyay iyada oo beesha caalamka ay u sheegtay in aysan maalgelin doonin doorasho aan wada ogol ahayn waxaana qoraal shalay ka soo baxay ee ku baaqday in heshiis laga gaaro doorashada afar cabsi uu ka qabo inuu sabab u noqdo qalalaasa dagaal ama rabshado dalka ka dhaca isla markaana uu sabab u noqdo in dalka ku laabto meeshii uu taagnaa 30 sano ka hor xilli uu ahaa madaxweynihii loogu rajada wanaagsanaa burburkii kadib shan in madaxweyne goboleedyadii kuwa garabka ahaa ee uu isku haleynayay ee ka cagajiidayaan inay qabtaan doorasho aan wada ogol ahayn taasi oo markii hore uu qorsho ahaa arrintan oo dhan ayaa la aaminsan yahay in 10 maalmood ee soo aadan dalka u jahayn doonaan heshiis ka roonay midka hadda ee doorashada Soomaaliya waxaana muuqata inay rajo qabaan mucaaradka iyo guud ahaan daneeyaasha arrimaha Soomaaliya cali maxamed warbaahinta Muqdisho daahir maxamuud geelle oo ah musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in ay madaxweynaha galmudug Axmed Qorqor uu si markhaanti leh u shaaciyay inuusan dhexdhexaad ahayn hadda kadibna aan dhexdhexaad lagu tilmaami karin runtii madaxweyne Qorqor waxaan ka rabnay inuu noqdo dhexdhexaad laakiin xalay waxa uu inoo sheegay inuusan dhexdhexaad ahayn isagu markii uu dhexdhexaad ahayn waxaa hareer mari kara guusha Axmed Qorqor anagoo aad u xurmeynayna waxa uu si markhaati leh noogu sheegay arrinta socota in uusan dhexdhexaad ka ahayn marka dadka waa in aanu la wadaagnaa oo aan fahansiinaa natiijada ka dhalan karta qof aan dhexdhexaad ahayn markii uu dhexdhexaad noqdo ayuu yiri daahir maxamuud geelle oo la hadlay BBC-da ayaa sheegay in madaxda dowladda goboleedyada ay uga jawaabi waayeen su'aal ay qabeen oo ahayd in doorashada bilaabayaan oo go'aankoodii ay ka laabanaynin iyo inay raadinayaan xal kale waxaan la kulannay madaxweynaha 3 maamul goboleed waxaan u sheegnay in maqnaanshiyaha Jubbaland iyo Puntland ay qaadacsan tahay doorashada isla markaana loo baahan yahay in lagu dhaqaaqo tallaabo lagu wada qanacsan yahay ayuu yiri sidoo kale waxaan u sheegnay in ay wargeliyeen waan ka soconaynaa waxaan la yiraa aan la iska yeelaynin iyaguna ay u sheegeen in ay xal kale raadinayaan go'aanadii hore aysan ku laaban doonin aragtiyo waan isdhaafsanay laakiin isma aanan qancin ee waxbaan isla meel gaaray Cabdicasiis lafta galeen ayaa ku niri xiriir la samay oo la xiriir maamulada maqan ayuu yiri sidoo kale waxa uu sheegay in madaxda dowlad goboleedyada ay la kulmeen ay ka ballan qaadeen in go'aankoodii ay dib ugu laabanayaan isla markaana ay la xiriirayaan madaxda maamul goboleedyada ee maqan Jubbaland iyo Puntland indhaweyga meelowda gabay waanigan marine hayeeshee haddaan maaga waa mirayaaya marti loo yaqaan baan ahay macalinkeedii aan mutuqiya maanto kalaamuurka kiciyaaya keedkayga gabay haddaa hadalla soo tuuro saaxiib Ismaaciil haddaa maganka ka dulmaysiiyo adduunyada korortay oo tiradii kor u dhaaftay meeshii kiiska dhow ama kulan lagu yeesho ama kubadda lagu dheerayaa koriga gacantaba durba waxaa noo keenayaa kaamirada weeye lagan baacadka soo koobna kaleer wax u sheegta hadiyo waan xidigaha koree dayaxa kor u dhaafay
saafiyiinta kaamiraysa sida kombiyuutar agaasimo kormeerkiiyo kobcinta loo daayay kaydka aan marnayn oo nooc walbaba koobay magan baa ka wahaysatee kaalintee xigi kalsoonidii shacabka ay heleen 1001 jeer kanada kuuriya iyo koonfurta aan dul joogno kaafma kismaayo iyo UK kaliyeeda koonfurta Ameerika iyo koonfurta Galbeedba kalsoonidii shacabka ay heleen 1001 jeer magan baa ka wahaysatee kaalintee xigi waxagaag ra'iisul wasaare Roble oo weerar afka ah ku qaaday xubnaha beeshiisa uu ku matalo kursiga ra'iisul wasaarenada isla markaana meel hoose gaarsiiyay saamiga ay ku leeyihiin dalka waxaana qodobkaas inoo soo jeedinaya wariye Maxamed Cabdi Barre ra'iisul wasaare Roble oo weerar afka ah ku qaaday xubnaha beeshiisa uu ku matalo kursiga ra'iisul wasaarenimo isla markaana meel hoose gaarsiiyay saamiga ay ku leeyihiin dalka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in beesha uu ka dhashay Hawiye ay tiraad ugu yar ka yihiin Soomaaliya Roble habeen hore hoygiisa magaalada Muqdisho ku qaabilay suxufiyiin iyo qaar ka mid ah madaxda warbaahinta ayaa yiri qabaa'ilka labada ay Galmudug iyo Hirshabelle ka soo jeeda oo aan anigu ka dhashay waxay siyaasadda Soomaaliya ka matalaan 12.5% balse waxay isku muujiyeen inay siyaasadda hogaaminayaan loomana joojinayo yiri ra'iisul wasaare Roble oo aragga wajigiisa ka muuqatay ayaa inta badan kulanka 3 saacadood qaatay uga hadlay dhaliisha beesha Hawiye ilaa uu tibaaxay in mushkiladda Soomaaliya iyagu ka yihiin macda sababta u beegsaday beeshiisa hase yeeshee waxaa loo macnayn karaa in inta badan musharaxiinta mucaaradka ay is hayaan dowladda ay ka soo jeedaan beesha Hawiye waxaase xusid mudan in khilaafka doorashada uusan ahayn mid u dhexeeya kaliya dowladda iyo musharaxiinta balse ay sidoo kale qayb ku yihiin maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland Roble ayaa sidoo kale weeraray oo tuugo ku tilmaamay madaxweynayaashii hore ee dalka ee iminka u tartamaya xilka madaxweynaha isaga oo raaciyay inay doonayaan in dalka qalalaas ay u horseedaan hadalka ra'iisul wasaaraha ayaa imanaya iyadoo uu muran xoogan iyo walwal u dhaliyay go'aankii ay xukuumaddiisa shaacisay ee ahaa in la qabanayo doorasho ay ka maqan yihiin dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland Maxamed Cabdi Barre Radio Magan beesha caalamka oo dhinacyada siyaasadda Soomaaliya ku canaanatay inay isfahan ballaaran ka gaaraan badnadooda siyaasadeed ee ku jira doorashada waxaa qodobkaas inoo soo diyaariyay Xasan Ismaaciil beesha caalamka oo ugu baaqday madaxda Soomaalida ee isku mari la hanaanka doorashada in ay muujiyaan biseel siyaasadeed isla markaana isu tanaasulaan lana qabto doorasho xasiloon oo waqtigeeda ku dhacda sidoo kale beesha caalamku waxay ka digan hadallada hanjabaadaha ah ee madaxda Soomaalidu isu marinayaan warbaahinta waxayna ku baaqeen in si nabdoon loo soo bandhigo afkaaraha ay kala aaminsan yihiin dhinacyada siyaasadda isku haysta waa kan qoraalka oo u qornaa sidan waxaana lagu yiri saaxiibada Soomaaliya ee caalamka waxay aad uga walaacsan yihiin ismari waaya ka taagan hirgelinta hanaanka doorasho ee 17 Sebtembar ku heshiiyeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka waxaan ugu baaqaynaa saamilayda siyaasadeed ee sare inay muujiyaan hoggaan iyadoo la tixgelinayo danta ummadda iyo inay si dhaqso leh u xaliyaan arrimaha ka taagan hirgelinta iyadoo loo marayo isu tanaasul si loo sii gudo galo geedi socod doorasho oo lagu kalsoonaan karo oo u dhaca sida ugu dhaqsiyaha badan saaxiibadu waxay ka mahad celinayaan dadaaladii lagu dhaqaaqay dhowaan gaar ahaan waxay soo dhaweynayaan booqashadii ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo uu ku tagay Galmudug iyo Puntland wadahadaladii dhexmaray madax sare oo badan oo Soomaaliyeed oo uu Garowe ku martigeliyay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo xiriiradii uu sameeyay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor oo soo gudbiyay talooyinka ka yimid Garowe una soo gudbiyay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo xubnaha kale ee siyaasadda saaxiibadu waxay garwaaqsan yihiin in heshiiskii 17 Sebtembar ay ansixiyeen dowladda federaalka ah dhammaan dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ah iyo labada gole ee baarlamaanka waxaan sidoo kale soo dhaweeyay musharaxiin badan oo u taagan xilka madaxweyne inkastoo saaxiibada iyo dad badan oo Soomaalida ay ka niyad jabeen in hanaankan uu aad uga hooseeyo doorashooyinka qof iyo cod ah ayaa haddana heshiiska 17 Sebtembar wuxuu yahay asaaska kaliya ee la aqbali karo in loo maro doorashooyinka 2021
ma jiri karo dib u furid lagu sameeyo heshiiskii 17 Sebtembar ama abuuritaanka hanaan kale ama mid barbar socda. waxaa loo baahan yahay in isfahan ballaaran loo wada dhan yahay lagana gaaro hirgelinta heshiiskaas si loo xaqiijiyo kalsooni laguna qabo geedi socodkan. tani waa in ay la jaan qaado ballanqaadyadii lagu heshiiyey ee shirkii madasha iskaashiga Soomaaliya. saaxiibadu waxay soo dhaweeyeen dadaalo dardargelin leh oo sida ugu dhaqsiyaha badan loogu xaliyo arrimaha taagan looguna soo gabagabeeyo isfaham la gaaro maalmaha soo socda si ay doorashadu u bilaabato dabayaaqada bishan. saaxiibadu waxay ku boorinayaan madaxda Soomaaliyeed inay ixtiraamaan oo ay si buuxda u hirgeliyaan qoondada haweenka ee 30% ku yeelanayaan baarlamaanka sidii ay ugu ballan qaadeen heshiiskii 17 Sebtembar. saaxiibada caalamku waxay mar kale ku celinayaan in hanjabaad kasta ama adeegsiga rabshado aan la aqbali karin. waxay sidoo kale carabka ku adkeeyeen ahmiyadda ay leedahay in la helo jawi siyaasadeed xor ah oo furan kaas oo musharaxiinta ay awoodaan inay si nabad ah ku soo bandhigaan aragtiyadooda isla markaana ay warbaahintu awood u leedahay inay ku shaqeyso xayiraad la'aan. waa in la joogteeyo jawiga wada hadalka oo isu tanaasulka ku saleysan ee horseedaya in la gaaro heshiiskii 17 Sebtembar si geedi socodka doorashada hore loogu sii ambaqaado. howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya, AMISOM, Belgium, Canada, Denmark, Masar, Ethiopia, midowga Yurub, Faransiiska, Jarmalka, urur goboleedka IGAD, Ireland, Talyaaniga, Norway, Sweden, Switzerland, Turkiya, boqortooyada midowga ee Britain, dowladda Mareykanka ee qaramada midoobay. madaxweynaha Puntland oo kala diray golihii deegaanka ee degmada Gaalkacyo waxaa warkaas inoo soo diyaariyay Fuaad Cabdullaahi. wareegto lagu kala diray oo ahayd xeer madaxweyne ayaa lagu sheegay in markii uu arkay talo soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha iyo warbixinta hanti dhowrka guud ee Puntland la kala diray golaha deegaanka ee degmada Gaalkacyo. sidoo kale wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Puntland ayaa lagu magacaabay maamul ku meel gaar ah oo ay yeelato degmada Gaalkacyo. xubnaha la magacaabay waxa ay kala yihiin Maxamuud Cabdi Nuur Aadan oo loo magacaabay gudoomiye ku meel gaar ah ee degmada Gaalkacyo iyo Shaafici Cabdullaahi Xaashi oo loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka ku meel gaar ah ee degmada Gaalkacyo. xeerkan wuxuu dhaqan galayaa markuu madaxweynaha saxiixo wuuna saxiixay waxaana uu ka dambeeyay markii madaxweyne Dani uu kala diray golihii deegaanka ee degmada Gaalkacyo. Fuaad Cabdullaahi, warbaahinta raadiyo Magan. Somaliland oo gacanta ku dhigtay rag la sheegay in ay weerar ku qaadeen taliska ay ku lahaayeen magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. qodobkaas waxaa inoo soo jeedinaya Cumar Cabdulqaadir. ciidamada maamulka Somaliland ayaa gacanta ku soo dhigay tiro dad ah oo lagu tuhmayo inay ka dambeeyeen weerar loo adeegsaday bam gacmeed oo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay gudaha magaalada Laascaanood. weerarka oo lagu soo qaaday goob ay ka socotay diiwaangelinta codbixiyayaasha Somaliland ayaa waxaa ku dhaawacmay ilaa 3 qof oo isugu jiro dad shacab ah iyo askar. wararka ayaa sheegaya in ciidamada Somaliland oo xalay howlgallo ka sameeyay gudaha magaaladaasi ay xireen dad dhowr ah oo loogu shakisan yahay weerarkaasi. saraakiisha ammaanka ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in dadka la soo qabtay ay haatan ku socdaan baaritaano dheeraad ah oo ku aadan ku lug lahaanshaha qaraxaasi. xaaladda ayaa saaka degan iyada oo si caadi ah ku soo laabtay dhaqdhaqaaqa dadka iyo gaadiidka intaba. Laascaanood ayaa waxaa maalmihii u dambeeyay ka dhacayay falal liddi ku ah amniga oo u badan dilal qorshaysan iyada oo ay howlgallo ka bilaabeen ciidanka Somaliland. ciidamada ammaanka ee Galmudug oo howlgallo ku soo qabtay waxyaabaha qarxa. qodobkaas waxaa inoo soo jeedinaya Cabdinaasir Cumar. ciidamada ammaanka Galmudug oo howlgallo ka sameeyay Dhuusamareeb ayaa fashiliyay qarax la doonayay in lagu fuliyo magaaladaasi. qaraxa oo ahaa nooca miinada ayaa lagu aasay koob fariisin u ah ciidamada ammaanka oo ku taala bartamaha Dhuusamareeb iyada oo laamaha amniga ay soo saareen. taliska booliska Dhuusamareeb oo ka warbixiyay howlgalladaas ayaa sheegay inay ka war heleen
qaraxa isla markaana ay fashiliyeen. sidoo kale wuxuu taliska intaasi ku daray in miinadaas la doonayay in lagu waxyeeleeyo dadka shacabka ah. ciidamada Galmudug ayaa maalmihii u dambeeyay baaritaano dheeraad ah ka waday Dhuusamareeb iyadoo deegaanada ku xeeran si looga hortago weerarada Al-Shabaab. Dhuusamareeb ayaa waxaa si wada jira uga howlgalada ciidamada Galmudug iyo kuwa dawladda oo alaaba baaritaano ka sameeya halkaasi. ogeysiis ma tahay qof jecel inuu noqdo saxafi ka dhex muuqda bulshadiisa, ma doonaysa amiinada saxaafadda inaad khibrad ka korasato, mise jeclaan lahayd inaad wax badan ka fahanto barashada iyo aqoonta ku duugan miinada saxaafadda inta aan soo sheegnay iyo in la mid ah. haddaba waxaa kuula diyaara macadka tababarka cilmiga saxaafadda ee Magan Trade Center Journalism. waxyaabaha macadka Magan Trade Center Journalism aad ku baran doontaanna waxaa ka mid ah asal ahaan saxaafadda halka ay ka timid iyo waxa lagu qeexo, taariikhda saxaafadda, qaabka loo diyaariyo loona qoro wararka. sidoo kale waxaa ku sii dheer habka loo hindisay muuqaalada ama qorooyinka cajiibka ah iyo qaybaha ay u qaybsanto saxaafadda. waxaana ku baran doontaa muddo 3 bilood ah, weliba adigoo tababar dheeraada ka helayo idaacadda Magan. haddaba isdiiwaangelintu waa ay socotaa, casharada waxaad ku qaadan doontaan qaab online ah. haddaba wixii faahfaahin dheeraada waxaad kala xiriirtaan taleefan lambarka furaha 26891 ama taleefan lambarka 6105119. ku baro saxaafadda muddo gaaban oo noqon saxafi khibrad dheer ka haysta saxaafad kaliya adigoo iska diiwaangelinayo macadka tababarka cilmiga saxaafadda ee Magan Trade Center Journalism. waxaad dhegaysanaysaan waa barnaamijkii kulan wareedka ee raadiyo Magan. haatana waxaad soo gaarteen gunti iyo gabagabadii barnaamijkeenna, waxaana soo jeedinaya barnaamijka anigu Muscab Jaamac Axmed. dhegaystayaal inta aan mar kale kulmayno waxaan idinkaga tagay sidaas iyo nabadgelyo.